war qoraala oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxay mar kale ku xaqiijisay inay ka go'an tahay ilaalinta qarannimadeeda iyo xaqiijinta nabadgelyada Soomaaliya iyo shacabkeeda sida qoraalka lagu yiri. Qoraalka ayaa lagu yiri marka aan ka gudubno howlgalka ADMIS una gudubno howlgalka xasilinta Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AUSOM. Soomaaliya waxay hogaamin doontaa jihada howlgalka iyadoo si cad diiradda u saari doonta madax bannaanideeda. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri tallaabooyinka halka dhinac ah ee ay Itoobiya dhawaan qaaday oo uu ku jiro heshiis sharci darro ah oo ay la gashay gobolka waqooyi ee Soomaaliya waxay xadgudub ku yihiin madax bannaanida waxayna meesha ka saaraysaa kalsoonidii lagama maarmaanka u ahayd nabad ilaalinta. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri ciidamada ay Itoobiya geysay meelo ka mid ah gobolada Soomaaliya ayaa horseeday in dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab uu kordho horumarka dagaalka kooxda laga soo horjeedana uu yaraaday. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri tani waxay qasbaysaa in si miyir qabta oo istiraatiijiyadi ay ku dheehan tahay aan u soo xulanno ciidamada dalalka aan saaxiibka nahay si loo xaqiijiyo in howlgalka cusub ee AUSOM uu la jaan qaado himilooyinka amniga iyo horumarka Soomaaliya. Waxaa kaloo qoraalka lagu yiri inta aan isu diyaarinayno wejiga xiga ee nabad ilaalinta oo hoos imaanaya howlgalka xasilinta Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AUSOM ee soo socda waxaa lagama maarmaan ah inaan mar kale ku celinno in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan lehna awoodda go'aanka gaarista wadamada ciidamadoodu ku biirayaan AUSOM. Go'aanka ku saabsan tabarucaadka ciidamada waa inuu waafaqsan yahay danaha qaranka Soomaaliya iyo ilaalinta qarannimadeeda ayaa lagu yiri qoraalka. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri waxaa naga go'an inaan kala shaqayno Midowga Afrika, Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub hirgelinta howlgalka AUSOM iyadoo Soomaaliya ay hormuud u tahay xulashada saaxiibada ixtiraamaya madax bannaanideeda. Soomaaliya gorgortan kama geli doonto go'aanada mustaqbalka iyo amnigeeda saameeya. Waxaan ugu baaqaynaa ayaa qoraalka lagu yiri dhammaan wadamada iyo hay'adaha aan bahwadaagtanahay inay dhowraan mabaadi'daasi si loo helo Soomaaliya nabad iyo barwaaqo ah ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka. Qoraalkan oo siiqad diblomaasiyadeed lagu qoray ayaanay dowladda Soomaaliya si cad ugu sheegin in ciidamada Itoobiya aanay qayb ka noqon doonin howlgalka AUSOM iyo waxa uu doorkeedu noqonayo haddii Itoobiya ay ka laabato heshiiskii ay Soomaaliland la gashay. Waxaa kaloo qoraalka aan lagu soo hadal qaadin dalka Masar oo dowladda Soomaaliya horey ugu yaboohay inuu ciidamada AUSOM qayb ka noqonayo. Haddaba qoraalkani muxuu ka dhigan yahay? Su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyey Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo Maraykanka kuna nool gobolka Virginia ee duleedka Washington. waxaan ku fasirin lahaa waa mowqif saxa weeye oo dowladdu hadda Soomaalidu ma aha markii 10 sano iyo 15 sano ka hor iyo ma aha markii dalalku intay iska soo galaan wixii la raba la sameeyay oo wala kastaba waxay rabto ka sameeynaysa. Hadda dowladdu waa well established, waa dowlad maaragtay isku tashanaysa. runtiina mowqifka ay ka qaateen oo ah inay dowladaha Soomaaliya ciidamada ugu yaboohaya inay go'aankeeda iyagu leeyihiin oo ay lead ka yihiin waliba lead kaliya ma macnaha hogaaminteeda ay leeyihiin iyo jihaynteeda aad bay ugu saxsan yihiin waana muhiimadda ay Soomaalida oo dhan u leedahay weeye dii kale dalku xorba maaha markaas. Waa garta markaad fiiriso wadamadii uu dhawaan madaxweynuhu tagay booqashada uu ku tagay ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya, Uganda, Burundi iyo Djibouti iyo Kenya maxaa isku soo beegay bay kula tahay warqadan cusub iyo safarkii madaxweynaha? Waa isku xiran yihiin sababtoo sidaad ka warqabto Ethiopia dowladda Soomaaliya waxay codsatay maadaama uu khilaaf xooggan ka dhex jiro ayaamahan siyaasadoodu aanay xasiloonayn inaanay ka qayb noqon golahan cusub oo AUSOM loo yaqaan oo lagu bedelayo ATMIS. marka madaxweynuhu la tashiyana waa uu la sameeyay dalalkaas oo dalalka ciidamada ka keenaya wuxuu kaloo rabaa oo uu hubinayaa in markastaba ay directionka ay leedahay Soomaalidu ay leedahay jihaynteeda. waxaa taas sii dheer Ethiopia oo sidaad ka warqabto ayaamahan iyaduna shirar kale ku jirtay oo leh waa inaan khasab aan uga mid noqonnaa ciidamada la geynayo Soomaaliya. marka waxaad moodaa halkaas inuu loolan ka jiro la kala shukaaminayo ama la kala xudxudanayo dalalkii ay Soomaaliduna la shiraysay Ethiopiana la shiraysay. Ethiopia hadda wasiiradoodii oo dhan bay u yeertay dalalka ciidamada maaragtay ku yabooha Soomaalida ugu yabooha oo ay ka dhaadhicinayaan waa inaan ka mid noqonnaa oo waliba qaarkood sida la sheegaya maaragtay ay u qabaanba haddaan Ethiopia la joogin iyaga laftigoodu inaynba isku fillaynba. marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan tahay madaxweynuhu inuu iyo dowladda Soomaalidu inay u sharaxdo dalalka deriska iyo dalalka caalamka oo dhan
inay iyadu awoodda u dambaysa leedahay iyo go-aaminteeda cidda ka mid noqonaysa ciidamada ku yaboohaya dalalka ku yaboohaya ciidamada. cabdiqafaar isaan ognahay wadamo badan oo reer galbeedka maraykanka ku jiro fikradda ku saabsan in ciidamada ethoobiya laga saaro soomaaliya si cad meel cad kamaana istaagin oo maraykanka hore wuxuu u sheegay in ciidamada hadda ka jooga africa unionka gudaha soomaaliya ka joogay admis qaybta ka ah inay doonayaan inay sii joogaan soomaaliya oo howlgalkan cusubna maaragtay qayb ka noqdaan. dowladda soomaaliyana waa tan warqadan soo saartay. marka ma is leedahay dowladdu waxay doonaysaa inay ku cadaadiso dowladda ethoobiya inay ka laabato heshiiskii ay la gashay somalilan oo ay ku cadaadiso tira haddaadan ka laabanin ciidamadana kama mid noqonaysid. doorkaas siyaasadeed maadaama aanay hadda si toosa ugu dhufan maaragtay busmaarka madaxa ma kula tahay inay doonayso inay arrintaa ku cadaadiso Ethiopia? waa sax weeye, waa ka mid arrintaas oo loolankaas diblomaasiyadeed oo Soomaaliya Ethiopia ka jira waa ka mid, laakiin waxaa uga sii muhiimsan Soomaaliya inay awood u leedahay ciday rabtana keeni karto, ciday rabtana ay oran karto ciidamadaada uma baahnin. sidaad xasuusato hadda ka hor aad baa la isugu qabtay in ciidamada frontline-ka la yiraahdo dalalka frontline-ka la yiraahdo oo sida kuwa deriska ah oo Kenya iyo Ethiopia iyo aanay ka mid noqon xasilinta dalka. taasaa waxay daba joogtaa weli fikirkaasaa jira oo dad badan waxay qabaan haddii dalalka deriska ah ay Soomaaliya faraha ka qaadi lahaayeen oo ciidamadooda iyo dafjirkooda iyo galaangalkooda iyo haddii uu yaraan lahaa xataa shabaabka awoodiisu waa yaraan lahayd oo shabaabku waxyaabaha ay ku doodaan oo hadda ay ka dhigtaan maaragtay excuse-ka amase ay ka dhigtaan marmarsiyaha waxaa ka mid a inay leeyihiin dalkaanaan daafacaynayo dowladdan xuntaa laguma hadlayn karo oo tabar ma laho oo ciddii rabtaa iska soo gasho oo waddankaani waa jaantaar rogan oo dad badan oo Soomaaliya waa aad bay ugu riyaaqaan oo waxayba dhahaan baadaan Soomaalidu ciidankeeda iyo awooddeeda iyo dowladdeedu hadday ku filayn oo hadday shabaabku inuu daafaco maxaa ka hortaagan. marka waxaa la hubaa haddii dalalka deriska ay ka daayaan farafaraynta iyo ciidamadan tirada badan iyo goboladan ay la shaqaysanayaan iyo meel alaaliya meeshay rabaan oo ay tegayaan waxaasoo dhan haddii laga daayo marmarsiyaha shabaabku waa yaraan lahaa waana laga adkaan lahaa. qoraalkan ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu socdaal ku soo maray wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya marka laga reebo Ethiopia.